Aragsana waxay dhahday fiidka ma daalo ilaa waagu dilaaco lixdii waan ka dhaanshaa. Waa heesta Uqbad Aragsan oo leh fiidka ma seexdee ilaa lixdii subaxnimo waagu bac ka dhahayo waan ka dhaanshaa. Qamar Suugaanin wuxuu dhahay hadal way isdaayaanoo digrigu konton hoos uguma soo dhacdo. qofta markiiba maxal jiri aan agteedaba aan maxal jiri hoosheedaba aan wado hadal buu isdaayaanoo digriga konton hoos uguma soo dhacdo. xaaji ilaahay ha ku barakay, ilaahay saan ha ku yeelo, hoosba uguma soo dhacdo dhaa konton. miyanka amaqnaan kara miyadu meelanahay agtaada ku miirsata. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo Mustafa janaalka daawanaysa Mustafa janaal. Haddaa janaalka cusubta subscribe, like, share, comment. maanta waxaan nii wadaa waxay tahay dagaal cusub oo ka dhex dhashtay Uqbad Aragsan iyo Qamar Suugaani. Uqbad Aragsan waxay soo dhigtay page-keeda Facebook ayay waxay soo dhigtay erayo hees ay leedahay waa coming soon. horta waxa la isku jijuudo maanta dhan la isdhaho ninkii Qamar Suugaani saddex bari ka bacdi heesta maanta soo jawaabay. maxaa wadaa marka labadoodaba falanqeyn inaan ka bixiyaa raba maanta, reaction aan ka bixiyo aad ila daawatay ninkana sida farcelintii wax ugu bixinaa in ay la fiirsatiin wixii horta adiiba aniga taladeeda la qaadanayo oo waxayga la qaadanayo heesta nagala joojiyo Uqbad Aragsan. adiga naga daa Qamar Suugaani intaas bis baan oran lahayo. heesta midda koowaad Uqbad Aragsan horta aan reaction ka bixino maxaa la dhihi aan isla wada fiirino. Uqbad Aragsan heestada hoos wuxuu ugu soo qortay coming soon. waxay ku bilaabanaysaa durbo waan hagaago, yacni qof hagaaga noqday oo kale. ninkaas markaa kala tagnay qof wanaagsan oo kale kaco maanta waxaa noqday oo heer sara noqdo oo kale. durbo shiishad baan helay naga dahe durbo shiishad baan helay oo kale. durbona waxaa la dhahaa qofka aqli leh kaliya fahmi karo. durbo shiishad leh baan helay dhahday. يعني نقد داي وحان وكل وحاوي فرعلنا لقى بحنا دل حتى تدكيب اسكو دقالة ما فهمت. ليس كمدو الجيفين سريرة ليس كمدو الجيفو يا احتاج انت سريرة المدو الجيفين دولس بوستا دولس وحالا نحابال كان او عيل كمركي ودير يهيو او وذانتي بهاش واحد لغو صو درسنا لغو حرو لغو تورو oo maxal dhigi jiray biyaha san loogu soo jiido ayaa la dhahaa dowlis ayaa la dhahaa. baashas buusitaayo lama seego dabinka lama seego kale meeshiisu rii ku siyaa fahanti. Uqbad Aragsan heestan haddii iida diyaarsatay fanillahi alxamdu. haddii laakiin ninka oo maxal dhigi jiray qof adoo ereyadan soo diyaariyay waa inuu kasoo bixiyaa maxal dhigi jiray xal ixmaan waa inuu kasoo bixiyaa. maxay ku sii dartee fiidkii kama dhaco fiidka hore uma seexdo kale taagan tahay. odayga fiidka hore uma seextee warkan war baa ku jiray dhageysta meeshan. fiidkii hore uma dhaco ilaa waagu dilaaco lixdii ilaa lixdii waan ka dhaanshaa. xaleedini waxay dhahday odayga hore uma seexdee ilaa waagu lixdii waan ka dhaanshaa. waa fahmi kartina umaleyna yacni dad maanta waaweynatiin oo maanta waa kii oo kale hooshiisa hore uma seexdee nin hore u seexda ma ahane ilaa lixdii waa ka dhaanshaa. qofki fahmi kara meeshan dad waaweyn baa ku xiran oo ciyaal kuma xirno ma fahamtay. oo maanta yacni dad waaweyn na daawanayo maanta nama daawanayaan dad ciyaal maanta oo iska yeerisana ma daawanayaan. waxay ku dhahday odayga hore uma seexdee ilaa lixdii subaxnimo waan ka dhaanshaa. haddana waxay ku sii dartay dayacu hore i baday, yacni wixii xumaan hore igu dhaco kale cidda weyse baa maanta timid oo kale. cidda weyse baa timid ay taagantahay. xumaanta hore igu dhacday
cid daweysa baa maanta timadeeda taagantahay. Ereyadaas waxaa leh Uqbad Aragsan ayaa maxaa dhihi jiray soo dhigtay page-keeda Facebook-ga, hoosna waxay ugu soo qortay coming soon. saddex beri ka bacdi waxaa soo jawaabay Qamar Suugaani. u gudubna Qamar Suugaani jawaabtiisu uu kasoo bixiyay Uqbad Aragsan. tuhun baa ku dilay, wuxuu dhahay tuhun baa ku dilay, man dadaal yareeno, tuhun baa ku dilay, tuhun iidan maxay dhahday odayga hore uma seexdee ilaa 6 waan ka dhaanshay dhahday. asigan muxuu taagay tuhun baa ku dilay, man dadaal yareen, nin dadaal yaray miihi oo kale, nin dadaal yaray miihi iska arag nin dabaasho uma xumi. tuhun baa ku dilo, man dadaal yareeno, nin dabaasho uma xumi. maxaa ka fahmi kartaa markaas? aniga weligeyga waa dadaali jiray, niyadaada waxaa ku jira inaanan dadaali jirin ee nin dadaal uma xumiyo dhaa odayga. muxuu sii dawracsiiyay haddana dowgii laygu siray, laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah sallallahu alaihi wasallam. dowgii laygu sirow dheh, wixii hore laygu siray hadda waan isdayno. doorkii hore laygu sirow taaganya hadda waan isdaynay. muxuu dhahay magsay haddana door cariiri baan helayo, door cariiri baan helay. laa ilaaha ila allah. waxaan oo kale afka ma qaban kara, dad waaweyn aan fiirsaa meeshan. door cariiri wuxuu koraa meel cariiri baan helayo. cariiri waa ma fiicni ka daa tartiibtaada Qamar Suugaani, tartiibtaada walaalow. door cariiri iyo waxaas iyo tartiibtaada barkeeso, wixii aash ilaahay ugu barakeeyo. door cariiri baan helayo, iskama dhaafsiiye wuxuu ka wadaa magsaysaa, yacni horeba uma geliyo kale, shaqada hore uma bilaabee daqi baan ku geliyaa. laa ilaaha illa allah. howsha maxaa la dhihi markaan bilaabo horeba maxaa la dhihi shaqada kama bilaabee ee meeshaas cariiriga dirqi baan ku geliyaa uu taagan yahay. ma ka daynaa yaa akhay? dad waaweyn baana fiirsanaya meeshaan, dad waaweyn baana fiirsanaya. ma ka daynaa heestan? war jawaabtu waaba jawaab oo adage. markaasay degaysaa ayuu taagan yahay odayga. markaasay degaysaa yacni idheesa xaaji meesha kasii wad xaaji, saas waa kada waa fatood waa leedahay. hadal way isdaayaanoo qofta hadal isma hayaan. markii sheekada la wado hadal isma hayaan qofta. wuxuu sii raacsiiyey digrigu way dikrine xaaji ilaahay ku barkeeyo, barakadaada ilaahay maxaa dhihi jiray korkaaga ha kaa soo saaro oo kale. dikrigaagu konton hoos uguma soo dhaco. dikrigi maanta dhan iyo wada kontonba hoos uguma soo dhaco. ilaahay ha ku barakeeyo, ilaahay maxaa dhihi jiray meel khayr qabta ilaahay waxa kaaga furo, balaayadii daldaleysuu dhahay. dikrigaba konton hoos uguma soo dhacduu dhahay. wuxuu ku sii xijiyey dowlad buu ilaahay ya meesha fiirso, warka meeshu u socdo fiirso. dowlad buu ilaahay igu daray jaceylku. war waa ereye maxaa la dhihi jiray oo kii kale kala kacsanay. dowlad uu dhahaya buu alle wax igu daroy uu dhahay. ya ma daadiso uu dhahay. duxda iyo jaceylkuba ma daadiso. duxda iyo jaceylkuba labadaba ma daadiso kale waa ma daadiso qoftaas. muxuuna dhaha hore muxuu dhahay meel cariiri baan helayo, hore iskagama geliye dirqi baan ku geliyaa uu dhahay. ya muxuu dhahay meesha ugu dambeysa muxuu dhahay dowlad buu ilaahay wax igu daraye jaceylku mana daadisayo, ana ma daadiso kale waaye duxdu iyo jaceylkuba. saxaabay labadan wax aan soo tiriyey, labadan hees aan soo tiriyey, midna waxaa soo qaaday Uqbad Aragsan,
oo goonideeda soo qaadatay oo ku soo qortay page-keeda Facebook-ga coming soon waaye. midna waxaa soo qaaday Qamar Suugaani page-kiisa Facebook ayuu asigana soo dhigay waa coming soon asigana. tan Uqbad Aragsan taabaha ay saaran tahay wayba soo socotaa haddii isbuucan soo gaarin buu soo gaaraysaa isbuuc soo socdo. Qamar Suugaani coming soon uu ku soo qoro asigana waa isku ogtahay Qamar Suugaani wixiisa taabaha la saaran yihiin hore ka imaanaysaa. waxaan leeyahay halka xishooda horta dad isqaba baa ahaydeen oo dad walaale maanta isgeeyay baa ahaydeen isku meelna joogay kala xishooda tii wax walaalnimo waana ay jirtana ka daaya abti ka daaya heestan inaa soo deysin ma ahane ka daaya. kala TikTok waxaa la arkaa dad isoo wareejinayo balaayi wax iska duduwaya la arkay ka daaya ya akhi billah alik. intaas waxay aad reaction-ka aan ka bixinay Uqbad Aragsan iyo maxal dijir iyo Qamar Suugaani labada maxal dijir page-kooda Facebook ay ku soo dhigeen dagaalkaas ay ku soo dhigeen. Uqbadna waxay taagan tahay ilaa 6 waan ka dhanshaa asigana wuxuu taagan yahay duba cariiri baan ku galiyaa uu taagan yahay. maxal dijir tasbiixdana konton hoos uguma soo dhacdo kale inay ka kormarisay maahane xaajiyo ilaahay ha ku barakay ilaahay saan ku yeelay inay dhahdo maahane hoosba uguma soo dhigtaba. warwaa Mustafa janaalkiisa haddaa ku cusubtiin subscribe haddaa nolol joogto haddaa nolol jooginna tajafo waa la bilaabay. waxaan igaaga tagaa sidaas iyo nabadgelyo kala maxanaaqtaan waaye alaabta. Assalaamu calaykum.